hay-adda hada oo ka dhirsan wadanka Ingiriiska ayaa deeq sariiro iyo isugu jirta lacag dhan $600 soo gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. Lacagtaasi oo ahba la yidhi qaybtii hore ee bilaha January iyo February bil kastana ay siin doonaan isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera $300 oo joogta. Isla markaana sariirahani ay dhan yihiin 20 sariirood oo wata gooyaal, barkimooyin iyo furaashyo. Waxaana alaabtaasi ku wareejiyay guddiga caafimaadka ee Berbera محمد جامع أو هيدا سي وكيلو كنا وريتيه جودي عافيمات. محمد جامع وكيلك أوركا هذا يفرق يسوي ودك UK وحن ما أنت هالكون كوريتشين يا لعق أيوة سو كيشين وأيوة تلاقي دكتورك لما بيلود أو كمان 50% بيلود بس $100 أيوة كوريتشين إن شاء الله تعالى halka yaala iyo fashaantoodii iyo maxaa ay tooy gooyaashoodii iyo barkimooyinkoodii oo halka yaala oo ka kooban 20 shay oo imika gaar laga dejiyay oo kuwan ka yaala cusub yihiin iyadoo guddiga caafimaadkuna ay ku wareejiyeen agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Berbera Cashadan Yaanyo. waxaana deeqdaasi soo dhaweeyay xubnaha guddiga caafimaadka Sheekh Mustafa Cali Cumar iyo Kayd Cabdullaahi Xandule ayaa soo dhaweeyay deeqdaasi ugana mahadnaqay hay'adda hada deeqdani. waxaanu ka gudoonay محمد جامع وكيل كهيئة هذا أما أوركان هذا إنجليز كفردي سياي $100 أو لقما حاجة يجانا بيل حاجة ودنا لوا بيل مثلا لا يجا 50% لا يوضلن قادم وحنو كلوك جدوني لما كوني $100 أو لقوا سوسني لبعتن صريرات أو نوعا أضجع أركيسان برتاع وأنا مدبك شقيني إني وأنا workshop كديني يلا بعتن كودي فراش يلا بعتن كودي بركمو يلا بعتن كودي جو sidoo kalena waxaa soo dhaweeyay agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera Cashadan Yaanyo oo guddida kala wareegtay deeqdaasi. waxaanay mahadnaq ballaaran u soo jeedisay hay'adda hada oo ay sheegtay inay horena deeq noocan oo kale ah u soo gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee Berbera, iyadoo tilmaamtay in sidoo kalena looga fadhiyo ballanqaad ay sameeyeen inay ku dayactiri doonaan bulaacadaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. deeqdan ka timi hay'adda hada oo ka dhisan wadanka Ingiriiska ayna leeyihiin qurba joogga reer UK ee Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore deeq noocan oo kale ah soo gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV, Berbera.